arrimaha caynkaas ah ha ku degdegina cidda qura ee shalay nusqaani ka soo gaadhay dacwadaasna waa golaha wakiilada oo wax yaroo golaha dhexdiisa lagu xallin lahaa ayaa maxkamadda tegey xildhibaan Axmed Yuusuf Nuur Guruuj oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland ayaa ka hadlay go'aan maxkamadda sare ee Somaliland ka soo saartay xeerlan barfadhiin oo xeerka furista ururada sidoo kale xildhibaanku wuxuu iftiimiyay in la isku waafajin karo doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada waxaana hadaladiisii ka mid ah markaa waxa la walaalayaal mar dambe hayna beejanina qodobka kale aan xalay ballan qaaday inaan ka hadlo waa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada saaxiibkay Siciid Maragiri isaga gaar baan u wada hadlaynaa saaga waxba odhan maayo isaga wan dib baan u dhigtay waxa hadaba yaala xukunkan maxkamadda sare waxay qaraarisay in ay aydo xukunkiinoo xeerkiinoo yaala xeer lambar 2 kaasoo ay ka bedeshay hal qodob oo ahaa in doorashooyinka ururada la raaciyo doorashada golayaasha deegaanka waxaanay maxkamaddu xukuntay in loo gali karo si toos ah haddaba sidoo xeerkaasi dhigayo maxkamadduna iftiimisay ururada cusub waxa la diiwaangelinayaa bisha 6aad waxa la diiwaangelinayaa 6 bilood ka hor marka uu shatiga ku dhacayo haddaba xilligaas waa goorma ururada shahaadadan liisanka ay ku shaqeeyaan waxa la siiyay 26 Disembar xilligii doorashadooda la galayna waxay ahayd 29 Noofambar ee 2012 sidaa markay tahay doorashadii ururada siyaasaddu waxay sax ku tahay inay dhacdo 26 Disembar ee shaatigu ka dhacayo bil ka hor oo ah 26 Noofambar 26 Noofambarna waxa ka soo horeysa 13 Noofambar waa doorashadii madaxweynaha waxa kale oo iyana dastuurku dhigaya in doorashada golaha wakiilada sanad kadib la dooranayo golihii guurtida golihii wakiilada waxa la doortay sida ogtiin 2021 May bisha May 2023 ay tahay in doorashadii golaha guurtidina ama xulustoodina la qabto sanadka maanta ah wadanka waxa fuulay oo is soo gaadhay 3 doorasho haddaba 3 doorasho iyo 2 doorasho markay is soo gaadhaan sidaba loo fartaamiyaa waxa kale oo is weydiin leh doorasho madaxweyne iyo doorasho ururo siyaasadeed oo is fulay hore meeno soo martay haddayna soo martay sidaba laga yeelaa madaxweynihii dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashada iyo asxaabta badan mudane daahir yaala kaahin markii uu talada qabsaday bishii May 2002 waxa wadanku ku jiray crisis waxa diyaar ahaa 5 urur siyaasadeed oo diyaar ahaa inay doorashadii galaan ururada doorashadii madaxweynaha na way taagneed waxa kale oo jiray ururo diidanaa in isdiiwaan galiyaan madaxweyne Riyaale isagoo go'aansaday inuu jidka dimuqraadiyadda jeexo wuxuu markiiba go'aan ku gaadhay inuu 45 cisho siiyo cidii urur cusub furanaysay si ay si diiwaan galiso xisbiga talada haya maanta ee kulmiye wuxuu noqday asxaabtii ka faa'iideysatay fursadda uu madaxweyne Riyaale bixiyay waxa kale oo isdiiwaan galiyay ururkii asad ee doorashada markaa diidanaa daahir Riyaale isagoo joogay 7 bilood oo kaliya ayuu qabtay doorashadii ugu horeysay ee deegaanka bishii Disembar 2002 doorashadii madaxweynahana wuxuu qabtay 4 bilood kadib 13 Abriil tan 23 Disembar buu qabtay sidaas 4 bilood gudahood madaxweyne Riyaale labada doorasho uu qabtay maanta Soomaaliland maxaa u yaala waxa uu yaala madaxweynuhu awoodo badan buu leeyahay xilal badan oo haya mar waxa weeye madaxweynihii guud ee qaranka xilka isaga haya marna waa gudoomiye xisbiga kulmiye maanta madaxweynuhu waxa loo baahan yahay inuu gogol ballan fidiyo inuu asxaabtiisa ugu yeero gudoomiyaha labada gudoomiye golana kala qayb galaan Soomaaliland qoyaankeeda kalena u yeero in xal laga gaaro wadanku 3 doorasho sidoo qabanayo way jirtaayo wax walba marka la cabirayo meel baa laga qaataa fuulka
haddii joomitiradu taga yar cabirayaan wadada ugu weyn ee meekay ku dhow bay ka qaataan oo waxay yidhahdaan intaasoo balow bixka ka xigta maanta laba doorasho oo dastuuriya oo dastuurku jideeyay baa inoo cayiman oo kala ah doorashadan guurtida oo bolaha wakiilada sanadka dambeynaysa iyo doorashadii madaxweynaha oo mutaxaleedkii madaxweynuhu dastuurka cayimay waana bisha November doorashadan kale xeerarku jideeyeenna iyana way ku soo biirtay marka waxa la oran karaa haddii daneeyayaashu isla gartaan doorashada ururada baa la soo qadimo bisha 7aad bayada hal bisha 6aad marka ururada la diiwaan galiyo 7aad ba doorashadii ururada hal galo bisha 11aad doorashada madaxweynuhu ku aastaysan tahayna tii madaxweynaha hal galo oo labada doorasho midna ay sanadkan dhaafin waxa kale oo la oran karaa doorashada ururada iyo ta guurtada hal israaciyo waxa kale oo la heli karaa doorashada madaxweynaha aan qabanno ururada arrintoodana dawladda cusub ee la doorto aan uga tagno ay joogor gubernatiif Hargeysa